caasho dalmar oo ahayd xaaska muuse boqor laakiin qof aad iyo aad u wanaagsan ahayd iyo mulaaxa cabdilla cilal oo cabdirasaaq xaj xuseen xaaskiisa ay ahayd marka markasta saddexdaas waa isu imaan jireen waxay isku dayi jireen inay ogaadaan situationka nimankooda ku sugan yihiin kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee waraysiga ay ha noolaato siisay shukri aadan shire oo ah gabadha curadda u ahayd oo uu dhalay wasiirkii ugu dambeeyey ee cadaaladda dowladdii rayidka ahayd ay askartu afgambiyeen 21 Oktoobar 1969 aadan shire jaamac aadan low intiina la socotay qaybtii labaad ee waraysiga waxay noo joogtay iyadoo reerku ay ka guureen guriga ay deganaayeen una guureen guri ay ku lahaayeen xaafadda Taleex oo uu si kiraa ugu jiray nin ajnabi ah kaasi oo diiday inuu ka baxo guriga waatan shukri oo halkeedii nooga sii wada sheekada ninkii wuxuu ku yiri darajciin baabatihiin buu yiri hadiiba inqilaab idinku dhacay anigana ma iga bixin kartaa yiri guriga waa ninkii ajnabiga ah waay saasuu yiri marka bas waxaa dhacday hooyo inay u tagtay ninka la yiraahdo oday maxamuud mire la dhahay oo gaashaan la sarcaa waay oo naagta carabta uu qabo iyo hooyaday waxay ahaayeen ilmo eedo iyo ilmo abti oo golaha saraha ku jiray waxay tiri haddaad gurigayga iga bixiseen maxamuud mirow ninkaygiina aad la tagteen oo caawa meeluu jira aanan ka warqabin ilmahayga ma waxaad ugu tala gasheen bay tiri inaan daadiyo qashinka ku dhex daadiyo ninkan Czechoslovakia ah oo maxay aan contractka aan kala saxeexanay oo 2 bilood ay u hartay wuxuu iigu jawaabay bay tiri maxay iiga adoo rajciya sidee u rabtaa inaan guriga kaaga baxo easygaas waay bas maxay kan ninkii uu yeertay subaxi ninka la yiraahdo maxamuud mire الله ونحرسته محمود مرا wuxuu ku yiri gurigaas yaa lagugu imaanin waxaan ku siiyay 4 days afar bari hooyana wuxuu ku dhahay baabuurka maxay baabuur keenso alaabtaada soo raro hadii uu xataa ka bixi waayo inta albaabada jabisid armaajo walba armaajadiisa inta saas u soo jeedid armaajadaada meesha gali hadii kala afarkaas bari buu ku baxaya warqad baan la siiyay ilaahay amarkiisa 3 bari ku baxay marka gurigaas idinku deganaa aabba idin keenay gurigaas anagoo degan waaye marka aabba bareelaha lagu keenay waay hooyana ay maqan tahay oo ay hargeysa jirto waay hooyaa timid marka hooyo markay timid maxay la kulantay waxay la kulantay aabe inuu garan waayo inay ayadii tahay sabab uu garan kari waayo qandhooyinka iyo waxa uu soo maray iyo waxa haya waa aabe waa garan waayo wuxuu yiri gabdhahan meesha taagan waxaad u sheegtaa odaga waa seexanaya xoogaa banaanka iga tagaan ilmihiis lagu garanay aniga isku qasbaayay aniga waxa waaye very attached baan ku ah aabahay markastaba asagaan ma taqaanaa aan isku qasbaayay ma gaarsiinaynba inuu ii aqoon waayaba waay hooyo yiri marka guriga hooyo iyo 2 qof oo haween ah ba qolka soo gashay bas markaas wuxuu yiri inaan xogaa indhaha isku qabtaan rabaay islaamahan kan dadkan haweenkan waxa tirada markaas waxaan ku ira aabe hooyo ma garanaysid miya ilaahay bay iga tahay yiri ilaahay bay iga tahay أنا قرني بير أنا حسست هو يدي وأويسي waxay
waxay ku oyday in anigii uu maanta i garan waayo oo silicaas iyo dhibaatadaas iyo waxaas maxaa ahayd loo geysto marka macnaheedu waxa way xaaladdu ku sugayay tusinaysaa waxa waaye mar dambe waaye markaan aabbo ogaanayno waxa ku yaal maxay tahay qofka haweenkiisa ogaan karta anigu ilaa xad limit waa garanayaa aabay situationkii uu ku waxaysnaa laakiin inuu xiniyo ka guban yahay inuu calooshiisoo dhan mataqaanaa sidii dadka oo beerka iyo maxay kalyaha iyo lagala baxay ay kabkaban yihiin oo aad loo rafaadiyey ma sheegi karin haweentiisaa sheegi kartay maxay ku sheegtay hooyo hooyaday waxay ii sheegtay ma noolay tiri aabbahaa ma noola laakiin ilmaha kan waxbaa u sheegi calool adayg baana laga rabaa bay tiri maxaa samaysay markaa aniga iyo hooyo mar kasta aniga iyo iyada keliyaha warrami jirnay sababto waxa waaye waxay isu waraysanaynaa maadaama anigana gacan yara aan iyadii u ahay qof wax la fahmi karana aan ahay kuwaan ilmahan kale aad bay u yaryaraayeen hooyo waxay dhihi jirtay waxa nagu dhacay oon helay oohin iyo catow iyo calaacal midna uma baahno adkaysi iyo raganimo iyo dadnimo inaan kaga baxno ma garatay aabbahaana waa i bargay bay tiri qof kalaba yeelkeedu shukri waxa u sheegi laakiin waa ku qasbanahay bay tiri inaan kuu sheego sababto waxaa weeye waxaas aan kuu sheegahaya waxaan rabaa qofka keliya oo wax ila garanahaya cabaad iyo hadda haddaan cid dhagaxyeyno iyo cid haddaan wax ku samayno cid cabataan ma garanaysaan cid loo cabanaayo ma jirto iyo cid wax kuu sheegaya iyo cid kuu garaabayso soomaalida dhaqankeeda wuxuu yahay waxaan aan aad ula yaabi jiray hooyo asxaabbay waxay la ahayd allaha u naxariiste saaxiib la ahayd qof la yidhaahdo caasho dalmar oo ahayd xaaska muuse boqor laakiin qof aad iyo aad u wanaagsan ahayd iyo mulaaxa cabdilla cilal oo cabdirasaaq xaji xuseen xaaskiisa ay ahayd marka mar kasta saddexdaas waa isu imaan jireen waxay isku dayi jireen inay ogaadaan situationka nimankooda ku sugan yihiin iyo in la keenayo maxkamad iyo waxa ay ku sugan yihiin iyo waxa ay noqon doonaan iyo waxa stepkan hadda aan taaganahay waxa ku xiga oo nagu imaan kara yay markasta ka waxaan xasuustaa nin baa noo yimid ayagoo ay fadhiyaan intaan aabba iyo lasoo saarin ninkiibaa wuxuu rabaa inuu kala cayriyuu rabaa saddexdan qof oo dhibanaha ah oo raggoodii xiran yahay oo meelay jiraan aan ka warqabinin baa waxaa loogu soo diray inuu kala warqaado maya inuu kala kaxeeyo shaki kala geliyo adiga xaajiyo lama socotid labadan qof habeenkii waxay qaadaan shaalal bay inta qaadaan bay maxamed siyaad bay la joogaan yaa la kala shaki gelinaa maalintan waa isla baroorataan habeenkiina siyaad baraa loo tagaa leey yaa loo tagaa leey xataa kacaankii dhammaa hooyadaa loola jeedaa marka taas hooyadaybaa waxaa la rabaa in shaki laga geliyo labadii qof oo ay dhibanaha isla ahaayeen oo isku situationka ay ku jireen heerka jooye ay gaareen aan kuu sheegaya inay xataa xamili waaye kacaankii dhammaa haween isu cataabahayo oo dhibaato iyo maxaa ahayd taqalladu ku kor dhacday inay habeenkii ay isu yimaadaan oo iska waraystaan waxa problemka oo ayagu markaas hayay iyo xanuunka hayay ninkaa marka muxuu ahaa ninkaas wuxuu ahaa nin qaraabo ah
marka hooyaday baa waxaa la rabay si daban in loo fahamsiiyo in ay qolooyinkan ka cararto ma garatay waa tahay saaxiibayaal waxaad daawanaysaan ha noolaato barnaamijkana waxaan wareysanaynaa gabadha curadda u ahayd wasiirkii cadaaladda waddanka xilligii dowladdii rayidka ahayd ugu dambeysay aadan shire jaamac aadan low waa shukri aadan shire shukri waxay noo maraysay iyadoo nin ka mid ahaa sirdoonka ama kacaanka ka mid ahaa u yimaado xaasaskii madaxdii la xiray oo uu u kala waramo ama rabo inuu kala diro oo mataqaanaa isku diro arrintaasay noo martay markaa ninkaa kuma u ahaa ninkaasu nin oo maxay tahay ikan qaraabo kora ah oo laakiin markii dambeeto oon arrinta ogaaday ka mid ahaa nabad sugidda maxay tahay ikan militariga yuu ku jiray mar kastana dadkan laga xiray maxaa ahayd ikan odayaashoodii la xiray mar kastaba under control bay ahaayeen waxaa imaan jiray guriga hortiisaa naloo seexan jiray wixii noo soo imaanaya dadkii qaraabada ahaa si tartiib ah baa nalooga goynayay si annaga isolated nalooga dhigo oo aan ugu khasbanaano in aan mataqaanaa ikan kacaanka raacno waay marka maxaa saas oo dhan laydinku galayaa maxaa gaar oo idinka qoys ahaan maxaa gaar ood ka hadlayseen nidaamka waxaan wax gaar aho annagu aan ka hadlaynay ma jirtid annagu waxbaan u tara waa garab qabanay waa soo dhaweynay hooyaday wax allaale iyo wixii ayagu ay iyadu ugu taabayeen waa fulinay marka hadday odagii dhibaateeyeen oo xireen oo habeenbarkii intay indhaha ka soo xiraan asaga iyo baashane oo xer ilaaliyihii ahaa sidii ninkii oo abtiga u ahaa uu subaxii noogu sheegay la toorjar garaynayay xiniyaha laga gubaayey ma fahamte waxay ahayd arrin aad iyo aad u murugo badan ujeedadu waxay ahayd wax allaale iyo wixii noo imaanaya iyo waxaan ku xirannahayba in nalaga gooyo oo isolated nalaga dhigo islaamahaas nimankoodii ka hadlayay oo fadhiyey maxaa ahayd oo isu tagayay oo maxay arrintu tahay iyo maxaan ka yeelnaa iyo wax ma qoranaa iyo idinku wax ma maqasheen iyo islahaa kacaanka dhan oo inta u shiray la yiri islaamahaas hala kala cayriyo oo hooyaday inta loo soo diro la yiraahdaa habeenkii bay inta shaalal soo qaataan bay afisyoone islaamahan u yimaadaan taasoo ahayd wax been ah oo aan jirin waay aabba marka xanuunsan ayaa idin yaalla gurigii xaaladiisu way kasii daraysaa maxaad marka xalahaad samaysaan waxaan xal samaynay guri laguma hayn karin madiinaan geyna isbitaal madiina isbitaal madiina wuxuu ku jiray 6 bilood markii uu isbitaalkaas uu ku jiray qandhadii waa la dejin waayey waxaan kaa iloobay ishaan aabbahay isagoo indhihiisii qaboo caafimaad qaboon beer xanuunayno jiro kaleeta aysan qabinin baa yaa subax la wata aabbahay wuxuu soo noqday isagoo mayda oo ishaana laga riday ishaan dhiig iyo xinjiro yaa saas u korkor saaraa aabbahay waxba xataa kama arkeynin waxa qandhada iyo rafaadka iyo dhibaatada kusii dhigaya waxa way neerfayaasha waay marka maxaa isbitaalka madiinaad geyseen maxaa lagu sheegay marka isbitaalka madiinaan geynay waxaa la yiri ishatan waa il nabar lagu dhuftay odaga hase ahaatee aan
la daaweyn wad garan kartaa adigu nabar mataqaanaa dhaawac hadduu aan daryeel helin way aan daryeel helin waayo aan waxba daawo helin waayo aabe bitaalka waxaa noogu yimid Ismaan Nuur Cali Qanof oo asikuratiyoonaha maareeya ka ahaa iyo Dr. Food Cadde waayo aabay fiiriyeen waa visit bay ka qaadeen wax kastay ka qaadeen waxay yiraahdeen aadan situationkan ma ku jiri kartid haddii bal wax yar xataa wax lagu qaban karo adiga habeenkii bay fariisiyeen medical college waxaa loo soo qoray in si emergency ah loogu qaado isbitaal talyaaniga ah bes markii arrintaas ay dhacday warqadihii iyo wixii oo dhan ayagii baa soo celiyey ayagaa tigidhadii u soo jaray ayagaa mataqaanaa diagnosis iyo wixii oo dhan iyo waxa laga fiirinayo dhan ayagaa soo waxeeyey wax allaale iyo wixii qof medical college loo qaado way halkaas habeen bay u soo dhamaystireen waa dhakhaatiirtii waay bes waxaa dhacday Ismaan Nuur Cali Qanof waa hooyo wuxuu ku dhahay xaajiyo waan kula socdaa laakiin waxaad ogaataa waxyaalo badan oo iloobaa jiro oo sabab mataqaanaa waxaas looga maarmaa jirto aniga waan ku aqaanaa adaygaaga iyo waxa aad dabacsan tahay aadan low haddaad meeshan ku hayso ma u malaynayo inuu ka kacayo teena iyo tiisi waa siman tahay meel kasta u tag kuwaan kacaanka haysta haka labalabaynin warqadahan qaad u geef dumaashigaa hor fadhiiso waayo bes hooyo maxay tii keen Allah u naxariistee habeenkii bay waxay u wacday walaashay dalaayad ii imo way tire way nootimi waxay tiri aadan loo waa kaasay tire wax kale oo aan ku sheegay ma jirto nimankii waxay yiraahdeen sida ugu degdegsiyo badan waa in la qaado ninkan oo u baxo lacagta annaga baxsanaynay tiri guriga rahmad u gelinayna annaga baxsanayna waxaanu doonaynaa in mataqaanaa ikan aniga iyo gabadhayduna aan raacano ama iyadu raacdo ama anigu aan raaco Italiana la geeyo warqadihii naga qaaday hooyo yay subaxii 4 saac iyo bar markay tahay bay u wacday waxay tiri ii imaada madaxtooyadan ugu tagna ayadii oo nala sugaayo meeshii baan tagnay waa wada galay marka wuxuu yiri mataqaanaa waa tambay tiri xaaji Muraayo aadan lowna lagu sheegi maayo wixii dhacayna adagaaba naga og marka waxaanu doonaynaa bay tiri in dhakhaatiirtu emergency-ga ay waxoodii ayagaa wax walba la baxaayo inaa arrintii loo dedejiyo habaryartay baa tiri waajibkeeda ka baxaysaa ma ogtahay warqadaha keen uu yiri warqadihii uu ka qaaday wuxuu ku qoray nin maxaa hayto nin siyaasi ah dibadda ma loo qaadayo
warqad dusheedu ku qoray dusheedu ku qoray asaga fartiisa waay bes aabba waa kaxaynay hooyo bes walaaley bay tiri aad iyo aadaad u mahadsan tahay adigu waajibaadkaagii ayaad ka baxday marka walaasheedu ku leedahay haa waad mahadsan tahay tiri anii hooyo waa soo baxnay isagu war kale idama dhihin oo aan ahayn nin siyaasi dibadda looma qaadayo ma loo qaadayo yiri mana baxaayo maxaa nin siyaasiya dibadda waa loo qaado maxamed ibraahim cigaal iyo ya safiir laga dhigay oo odayaashii soo baxay qaar baa darajooyin la siiyey oo safiirra laga dhigay aabbahay marka sababta uu ku kasbaday nooca kan waxaa weeye aabbahay wuxuu ku jiray dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu la dagaalamay naatsigii iyo fashistadii wuu la dagaalamay wuxuu ka dagaalamayay buuraha oo macerata iyo maxaa tii kan gobolada alta italia marka maadaama aabbana uu adestramento military ah iyo buurahaas uu ka dagaalami jiray oo uu mataqaanaa ikan buuraha iyo tareenooyinka uu mataqaanaa ikan naatsiga uu bumbooyinka ugu gelin jiray inaan aabbahay aan dibadda aan loo qaadin usan tegin xilligaas waxaa noolaa bertini oo ay bartijan isla ahaayeen waxaa noolaa madaxweynihii yugoslavia oo ay bartijan isla ahaayeen ninka dharka iyo bastooladiisa marshaal tito in kuwaas haddii uu dibadda tago inuu kuwaas maaragtay uu xiriir inta la sameeyo laakiin maba nooleynba isagaa horay marka macnaheedu waxay tahay aadanlahu taariikhdiisa wuxuu ahaa nin la dagaalamo boqortooyada iyo kalitaliskaba yurub ka qayb qaatay in ereyga ka xorowdo marka nidaam kalitalisaa soomaaliya ka dhalanayana inuusan aqbalin marka isaguna military buu ahaa aadanlow oo kuwaas u tegey inuusan ku daynayn oo waxaad aragtay aad ku samaysay laakiin wuxuu ilowsanaa aadanlow uu jirta kala baxay oo aan socon karin oo aan aadanlowgii hore ahayn inuu mataqaanaa ikan meesha marhaya waaya shukri marka hooyo iyo adiga marka waa dhaqaaqdeen odayga markuu idinku yidhi wax siyaasiya dibadda looma qaadayo annagoo korridooyadii sii soconno oo sii baxayna buu yidhi inaad ii keento ma ahayn xaaskiisu kulahay hooyaas gadaal u soo noqotay waxay ku tiri annagaa soo khasabnay bay tiri bes horey baan usoo baxnay aabbaan isbitaal madiinaan kusoo noqonay aabbo waxaa la fadhiyo muuse galaal iyo ninkii la dhihi jiray cali garaan jaamac bes cali garaan jaamac bes meeshiiaan tagnay mar allaale markaan meeshii tagnay hooyo waxay tiri aabbay u dhiibtay aabbo qandhada haysa iyo waxa haysa iyo diihaalka haya aad yaabaysid bay u dhiibtay waxay u dhiibtay warqadihii bes aabe anaa dhegta ugu sheegay aabe wuxuu yidhi baa iri ninkii waa la arkay wuxuuna yidhi baa nin siyaasi ah dibadda ma loo qaadayo bes warqadihii buu naga qaaday khaanada oo isbitaalka oo sariirta uu meesha geliyey cali garaada soo booday wuxuu yidhi aadan ninku muxuu soo yiri markaasuu yiri wuxuu yiri buu yiri ninka khaanadaas habarta iyo gabadheeda warqadda ii keenoo khaanadaas geliyey ka akrisuu yiri waxay usoo yiri warqada oo
maxay tahay far waa weyn ku qoray bas marka waxaa dhacday warqadii akhri meeshii la fariistay okiyaalu gashtay cali garaad jaamac nin wasiiradii ka mid ah iyo ahaa laakiin ay aabahay aad rafiiq u yihiin isaga iyo muuse galaal iyo garaadna wuu ahaa waxaa dhacday bas markay saas dhacday waxaa dhacday okiyaalihii isagiyo saan isaga bixinayo raba inuu iska dhigo waa waxaa ka soo ilmaa ka soo daadatay hooyo iyo aniga qolkii baan dhinacaas kaleetaan ka fariisanaa ilmo baa ka soo daadatay markay ka soo daadatay buu wuxuu dhahay cali garaad aadanow buuggaygan waa ku qoray aadanow waa ninkaad ogeyd waa ninkii wax aan inaan wax u tara maahayna weligeed anaan wax dhiba u geysan sababtu waxa waaye markii cabdirashiid allah u naxariista loo tagaayo aabe muuse samantar iyo cali garaad iyo kulli waa la isgarabsan jiro waa la isu raaci jiro si nin madaxweynaha looga reebo ninkaan mataqaanaa balaayo sheegaahoo oo waa lay haystaado un ku haya aabbaa jooy garab la siinay aadanow waa ninkii aan intaas aan u maray oo anaan weligeen saxar iyo dhibaato anaan u geysan oo anaan weligeen wax u dhimin wax inaan u tara maahane ninkii weeye ninka maanta saas noo galaayay bas aabe marka ishaan hal ishaan iftiinka ma arki karto ma ogtahay aabe wuxuu ku yiri cali garaadow uu yiri aniga waxba ha ii ooyin uu yiri cali garaadow aniga ha ii ooyin anigu ilaahii ii uuntay oo i khaalaqday baan u socdaa buu yiri caawa haddaan geeriyoodo nafta iga baxdo laakiin niman rag iyo rabbi aqoon adaan kaaga tegahayaa buu yiri oo maanta ku dhex noolo aan ka baqahayaa buu yiri inaad maxaa ahayte ii keen adigaan inaan kuu ooya adigay waajibta buu yiri sababto waxa weye niman rag iyo rabbi aqoon baan kaaga tegooyaa buu yiri adiga intaasi haynoo joogto qaybtii saddexaad ee waraysiga waxaan u mahad celinaynaa shukri aadan low oo waraysigan gaarkaa siisay ha noolaato muuse galaal oo isaguna isbitaalka ku jiray baa noo sheegay anaa dhaqay buu yiri aadan low galabtuu geeriyooduu yiri tii allah u timid inta ka horraysa waayaan la xuseen cabdi oo idinku dhaafaya nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid